Nairobi baa muddooyinka u dambeeyay saldhig u ahayd siyaasadda. Waxaa la sheegay inta halkaas ku sugnayd inaad kulanteen mas'uuliyiin gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro horkacayo oo ka wada hadasheen arrimo la xiriira midnimada Soomaaliya. Mudane Farmaajo waftiga Cabdiraxmaan Ciro markaa Nairobi ku kulanteen maxaa kaloo ka wada hadasheen? waa dad Soomaaliyeed oo runtii niyad wanaagsan runtii doonaya caruurta Soomaaliyeed iyo mustaqbalka Soomaaliyeed inuu la mid noqdo dadka horumaray taasna waxay ku imaanaysaa midnimo. aniguna waxaan u sheegay Soomaaliya haddii la rabo caruurteena inay caruuraha adduunka ah ay la tartamaan ama ay la mid noqdaan waa in madaxda Soomaaliya meel kasta ay joogaan inay isu yimaadaan ay mustaqbalka caruurtooda ay ka hormariyaan siyaasadda. wafdigaasi si briefly ah yaan u kulanay runtii de waxay sugayaan adigoo kale Soomaaliya imika madaxtinimada doorashadii baad u tartamaysaa murashax mucaarada tahay Cabdiraxmaan Ciro kale waa murashax mucaarada Soomaaliland buu ka tartamaya nidaam siyaasadeed miyaa dhigateen oo yani qorshe siyaasadeed oo ka oduraysan haddii labadiinuba guuleysataan waxaan u hadalnay si Soomaalinimo ah si walaalnimo ah yaan u hadalnay taaqudheeda miyaan la oran karin ololahaaga qayb ka ahayd in Cabdiraxmaan Ciro iyo waftigiisa xirsiyo buubaaya kala hadasho in midnimadii mar kale soo laabato haddee runtii dareenkaas waa wada qabnaa